fanaanka reer Kanada ee Keenan ayaa lagu soo oogay dacwo galmo ah ama kufsi oo ka dhacday magaalada Quebec. Keenan Cabdi Warsame ayaa subaxnimadii Khamiista ka soo muuqday maxkamadda waxa uuna diiday inuu qirto wax dambi ah inuu galay. Faahfaahin dheer lagama bixin dhacdadan balse waxaa la sheegayaa inay dhacday intii u dhaxaysay 16 iyo 17 Julaay sanadkii 2010. Fanaanka Keenan ayaa waxa uu hadda ku guuleystay abaalmarinta saameynta dhaqanka ee residency caalamiga ah ee 2009 uu ku garaacay Vivalag. abaalmarinaha soconay toddobaadkan 47 jirkan ayaa caan noqday kadib markii heestan la sii daayay taasoo noqotay mid caan ka noqotay caalamka markii loo doortay heesta xayisiinta ee koobka adduunka ee FIFA 2010. عين العافية هوسبيتال waxau ka daweynayaa xanuunka baabasiirka ma dareemaysaa dhabar xanuun caajis joogta cuncun dhanka hoosa saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gowasha hadaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3 7 7 7